ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My family forever living product aad baan idin islaamiya walaalayaal meel kastoo aad kala joogtaan. Waxaan doonayaa inaan la share gareeyo maanta productgayga billaha aan isticmaali jiray. Bishan imika ay naga dhamaanaysa iyo tan lafteeda bisha soo socota waxyaabaadka ay qorshaysan aan isticmaalo. Alaabteen walaalayaal kamanigeena labadaba uu bixiyaa una wealthy ka dhigo oo dhaqaalaad ka faa'iido. Sidoo kale inaad productgeeda use gareyso caafimaadkaaga aad ku ilaaliso ilaahay baa caafimaadka ilaaliya laakiin inay ka anfacdo iyaduna aad bay u wanaagsan tahay way alaabtiin waxaad ogsoontiin inay natural tahay 100% quality-geena aad iyo aad u sareeyo marka walaalayaal inta aad iibin adigu horta use garee productiga ma sha Allah adiguna isku bedel oo caafimaadkaaga u adeegso sidoo kale kamaniga waxyaabaadka personal use-ka soo saaraa oo qofku maalinlaha u isticmaali karo maalin walba inuu baahan walaalayaal Colgate shampoo cadar waxa soo dhan inuu baahanahay inaad tan aad ka dhigato isticmaasho oo qof productivity aad noqoto ma sha Allah dalabkaygi maanta soo sameeyay waxyaabaadkii qorshaysan aan isticmaalo waxa kamid ah malabka oo isagu bil kastaan iska isticmaalo markasta uu dhamaado haddana uu cusub yahay kan ma sha Allah cadarkiiba ka kooban doonaya bishan isagana inaan isticmaalo ma sha Allah sidoo kale walaalayaal waxa kamid ah Royal Chili waxa weeyaan qaybta boqorada malabka aad buu wanaagsan yahay caafimaadkana wuu wanaagsan yahay walaalayaal aad buu wanaagsan yahay waxaanu kamid yahay kiniinada kamaniga soo saaran kuwadka ugu wanaagsan ee bee products-ka ma sha Allah walaalayaal waxa kamid oo kale hand sanitizer baa kamid ah waa product cusub oo soo baxay ma jecelahay markasta inaan tijaabiyo productyadka cusub ee shirkadda ay soo saarto hadda ayuu kan cusub yahay ma sha Allah waxyaabaadkan furtaan isticmaalay ayuu kamid yahay haddaba waxyaabaadka iyaga bil walba aan iska isticmaalo ee aanan joojin iyaga walaalayaal waxa kamid ah shampoo-ga neeno kale ma sha Allah condition laftiis waa kan waxa kamid ah productyadkan inta badan aan isticmaalo ma sha Allah sidoo kale walaalayaal waxa kamid ah Colgate-kiina baa kamid ah waa kan Colgate-kii iyada ilaa maalintii aan kamaniga soo galay ilaa maanta waan isticmaalaa ma sha Allah productgaygi koobaad aan soo qaatay buu ku jiray aan isticmaalay sidii baan aan u wadaa waxa kamid ah deodorant walaalayaal kamid ah iyadana personal use-kayga kamid ah maalin walba aan isticmaalo ma sha Allah waxa kale oo kamid ah walaalayaal waxyaabaadkan bishii hore isticmaalay Arctic Sea baa kamid ah ma sha Allah Arctic Sea waa inaad iska jawalaad leedahay bil kasta product qaybaad isticmaali karto kooda xagga caafimaadka kale inaad qayb isticmaali karto kuwa personal use-kana mar walba aad iska isticmaasho Arctic Sea ma sha Allah neerfuhu wanaagsan yahay xasuustu wanaagsan yahay indhuhu wanaagsan yahay waxa soo dhan buu wanaagsan yahay walaalayaal ma sha Allah waa omega 3 saliid kalluunka ayuu ka samaysan yahay waxyaabaadka productgayga bishan aan isticmaalay kan tahay ma sha Allah waa dacartii saafi aloe vera gel waan isticmaalaa iyada ma sha Allah si iska jawaala baan isticmaalaa miisaanka ilaalisa inaan miisaan badan aan kugu kordhin qashisaar badan oo jirkaaga ku siinaysa habka difaaca jirkaagana way xoojinaysaa walaalayaal waxa kamid tahay productyadkan iskaga isticmaalaa sida iyadana regular-ka labadii bilood mar ama bishiiba marka qaar aan isticmaalo ma sha Allah halkan bishiina laba jeer haddaan doonaan isticmaalo kan waxa weeyaan moisturizer-ka wax liga dhaxmaha iyagana wuxuu kamid yahay cream-kayga personal use-ka iska isticmaalo ma sha Allah kan waa gel cream-ki laftiisii wuxuu la socdaa hadee jir condition-ka lagu daraa madaxa la mariyaa tifon nafaqeeya kan waa scrub-kii wax yar baaba ka sii haray ma sha Allah sii dhamaynaya kan laftiisa walaalayaal waxa weeyaan waa marina mask isagana waxa la iska isticmaalaa marmarkaad u baahan tahay weegiba mar haddaad doonto waxyaabahaas godadka yaryar oo dhan wixii qashidee kaaga jiray buu ka soo saaraya ma sha Allah walaalayaal libistii weeye tan lafteedu ma sha Allah oo iyadana waa inaad iskaga ka diyaar yihiin haddii uu nabar afka kaaga dhaco ama wax yar ay kugu dhacaan bayna iska marsan kartaa ama dhaxamaha kale xilligan oo kale la iskaga baahiya marka alaabta walaalayaal inaad adigu isticmaashaa waxay ka koow tahay inaad adigu caafimaadkaaga aad ku ilaaliso si fiican insha Allah isticmaasho marka waxaan diin rajeynayaa inaad noqotaan productivity iyo inaad idinku alaabta aad iska bilowdaan idinka laftiina isticmaashaan bil kastana wax idin qorshaysan aad soo qaadan kartaan ay jirtaan aad baad mahadsantiin walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh